الله مهله لسي عافماتك أنكو هالينو الحمد لله رب العالمين وحا إلهي كبرينا إلهي أفكينا واحد دبي حمان الله كدوره كوي حق الشيء وحق كو أدمنا إلهي نقدقو waxaan arkaya maanta dhacdooyin kurtu waa badan yihiin maanta aan idin hayo waa si kala horeeyaan oo qodobaan ka dhigaynaa midda ugu horeysa waxaan arkahayay shir loogu baaqay odayaasha beelaha hawiye inay muqdisho maanta isugu yimaadaan oo laga hadlo sidii looga hortagi lahaa nimanka argixisada ah qatarta ay ku yihiin deegaamada hawiye ha ahaato waa wax fiican in la isu yimaado la tashado saan wax yeelaan la yidhaahdo wax wanaagsan weeye lama diidana laakiin waxaa dulmi ah oo qalad ah in beelo soomaaliyeed iyadoo magac qabiil la sheeganayo in mataqaan lagu aflagaadeeyo shirkaas oo loo gafo beel dhan oo soomaaliyeed loo gafo oo la yiraahdo beesha direed la yiraahdo beesha direed afka lagu wada buuxso waxaan ogsoonahay nimankan khawaarista iyo argixisadu inay ka kooban yihiin beelaha soomaaliyeed oo dhan beel gaar ah aan lagu tilmaami karin qabiil gaar aan loo nisbay karin ayu qabiila ku jira dilaa ku jirta hawiya ku jira daarooda ku jira digil iyo milifla ku jira beelaha shanaada ku jira soomaali intay ka kooban tahay ayay ka kooban yihiin mataqaana argixisada ka kooban yihiin marka in odayaashii dhaqanka hawiye inay inta soo istaagaan ay beel soomaaliyeed ay dusha ka saaraan oo yidhaahdaan beesha direedoo dhana ah waxaan leeyahay war ilaahay ka baqa war beelaha soomaaliya ijaafada ka daaya war dadka yaan loo gafin war diraan shaqo ku laheena dhooban kuwa la qarxinayaa dhoobanoo dirahoo la dilayaa jooga deegaamada ay ku soo duuleen shabaabku dir baa degan oo biimaal baa degan biimaal waa dir oo mataqaanaa beelihii kaleoo direedoo deganaa waqooyiga deganaa baa jiro oo sida dhulkii galgaduud iyo mudug iyo dirta degan ayaguna waa dir dhulkooda nabad baahanoo duulana ku socda waxay ka mid yihiin kuwa mataqaanaa dagaalamayo oo kasoo horjeeda khawaaristii ku jiraan marka waxaan leeyahay odayga weyn ee hadlay ee beesha direed u gafay asagoo magac hawiye sheeganaya niman yahow aniga xasan weliya maalin kasta abolojesan baxshaa maalin kasta cimaamadan dhiibaa sababta ay tahay ninkii hawiye ka dhashay waxaa waaye ban u wataa banaa faraqa ugu jirta kuwaas maalin ilaahay soo garsho ummadda ilaahay aflagaadeehaya waxaa lagu leeyahay waa hawiye kula yihiin war ummadda soomaaliyeed loo gafin oo dadka soomaaliyeed mataqaanaa aflagaadaha laga daayo qabaa'ilka dir waa dad soomaaliyeed intaad hawiyow idinku shabaab ku leedihiin unbay ku leeyihiin intaad idinku aad hawiyow shabaab ku leedihiin ayay ayaguna ku leeyihiin inaad marka diroo dhan isku qabataan oo diroo dhan aflagaadaysaan waa gardarre cad waaye waxaan leeyahay diray raalli ahaada cimaamadaas qabsada anaa idiin soo dhiibay curudkii hawiye ah garaadkii hawiye ah awowgay garaad ahaa aabbahay garaad ahaa ka dhaxlay haddana garaadnimadii anaa si ku meel gaar u haaya inta laysaga imaahayo beesha karalle ama beesha mursade waxaan leeyahay diray raalli ahaada hawiyow waxaan idin leeyahay xisaab ma lahan inta hawiyaha ee ku jirta nimankan khawaarista ah waxaa ka mid a karazaya ka mida inta waaweyn idiisha karazaya ka mida koba ku dukadaa ka mida cali dheeraa ka mida war ummadda aflagaadada ka daaya dadka soomaaliya ha u gafina qabiilada soomaaliya ha u gafina taasu waa qodobka labaad oo aan rab inaan daba dhigtaa waxay tahay haddii la shiray oo hawiye ay shireen waxay yidhaahdeen qur-aan akhrihaynaa qur-aan aan akhrisahaynaa oo
shabaabka mataqaana isaga xijaabayno qur-aan shabaabka isaga xijaabayno yaan akhriyaynaa waxaan leeyahay diinku qur-aanku wuxuu u baahan yahay dahaaro u baahan yahay kitaabka qur-aanka markaad soo qaadaysid waa inaad dahaaro qabtaa dahaaraduna ma ahan keliya inaad dharkaagu daahir yahay oo weyse qabtid keliya ma ahan dahaaradu dhan walbaa laga rabaa kow naftaadu dahaaro ma tahay gurigaagu dahaaro ma tahay dharka aad wadatid oo aad gashan tahay xalaal ma yahay oo xoolo xaaraana ma ka soo bixisay waxaasoo dhan ayaa u baahan in laga fikiro oo la fiirsho kitaabka qur-aanka axkaam iyo shuruuc uu leeyahay taabashadiisa iyo qabashadiisu waxaan arkayay odayaashii maanta kitaabada akhrihayo oo laysu keenay kuwo aan ka aqaano oo guryo ballaqaa deganaa arkayay ilaaha idinku dhaarshay soomaali maxamedey nin guri ballaqaa ku jiro oo kitaab soo qaatay ee qur-aan akhriha dhahaya qur-aankiisa aqbalkiisa intuu gaara ma lama yaqaan meeshuu gaaraya lama yaqaan laakiin markaan cilmi ahaan u macnayno hadda wax ka jiraaho lama arko qur-aankaas qur-aan shaqayhaya ma ahan sababta ay tahay qofku waa inuu naftiisa ka bilaaba dahaarada ka bilaabaa waa inuu asagoo xaaraanta ka fogaadaa waa inuu qoyskiisa kala fogaadaa waa inuu gurigiisa kala fogaadaa waxaa la rabaa qofku inuu yahay qof daahira xalaal cun ah kaasaa loo baahan yahay laakiin kitaaban akhriha guri billaqaa waa deganahay beelo soomaaliyeedoo dir la leeyahana kulli waa shabaabaan leenahay annagoo og inta shabaab hawiyaha ku jirta annagoo og hadda saddexda ugu waaweynaan soo qaataye waxaa jooga kuwa ka badan ayaa jooga kuwa ka badanaa jooga amiirada yararka oo dhanba waa hawiye deegaamada ay degiyiin lagu martigeliyey waa hawiye dirta la sheegaayo 3 4 5 kaba badna dirta ay leeyihiin beesha diraa ka mas-uula shabaabka beesha la leeyahay laga yaabo diro inay shax qofood kulada laga yaabo amiirada iyo kuwa talada ka goodo iyo wasiirada nimanka ah gudoomiyaha maxay dhahayeen isheeg amiirka gobolka banaadir amiirka wilaayada banaadir amiirka wilaayada shabeellaha hoose amiirka wilaayada jubbooyinka amiirka wilaayada mataqaana shabeellaha dhexe amiirka wilaayada hiiraan amiirka wilaayada galmudug waxaasoo dhan waa hawiye in marka dadkaas soomaaliyeed dir la caayo anigu waxaan u arkaa gardarracdaan u arkaa dir u moodsilno ayagaa dagaal ku jira ayagaa dagaalamaya wiilashooda dhimanaya biimaalka degan shabeellaha hoose aad ogtihiin dhibaatada ay kala haystaan marka waa dhibaato dadkaas masaakiinta beesha direed in lagu abyoodo anigu abolojesa ka baxshay anigoo garaadkii beeshii karala hawiye ah ama garaadkii beesha murusda ah waxaan leeyahay raalli ahaada diray dadkaas aflagaadooday anaa idinka mataqaana cimaamad idinka saaray matagaay waxaa lihi walaalkiisa u luqluqa anaa idinkaaga luqluqay raalli ka ahaada intaas waa intaas waxaan arkayay oo kale degmada shangaani ayaa waxaa la yidhi waxay doorahayaan golo deegaan waa arkayna sida la wada ogsoon yahay magaalada muqdisho waa la yaqaan degmooyinka dadka degana waa la yaqaan waxaa la yaab noqotay shangaani oo ka mid a degmooyinka qadiimka ah ee gobolka banaadir oo ah degmooyinka taariikhda ummadda soomaaliyeed ku suntan oo la yaqaan dadka degan anigu waaba yaabay runtii aada ula yaabay waayo waxaan arkayay dadkan muqdisho dhowaan soo galay oo dhowaan yimid dadka muqdisho dhowaan soo galay oo midabkoodii bedela oo daawada ismarsho oo iscadeeyo oo iscadeyntaas albaxnimo ka dhigta ama isku shabaha inay yihiin reer xamar dad cadcad iska dhiga marka dadkii waxaan ku ogeyn hawiyihii qaarkiis inay ismarshaan daawo la ismarsho nin iyo naagba waxaan arkay xataa niman badanoo oo aan shalay madmadoobaayeno oo aan naqaano meelaha ka hadla meediyaha ka hadla haddana iscadeeyaan arkayna nin iscadeeyaan weli dadkan ka hor ma arkin
marka rag badan waa taqaanaan ma taqaanaa dadka iscadeeya waa taqaanaan oo la yaqaano hawiye marka waxaan isiri tolow dadkan codka bixinaya ee degmada Shangaani safar maanta ee la leeyahay waa bulshadii degmada Shangaani waxay doolahayaan golo deegaan markaan sawiradooda eegay oo aan eegay dadkaasu waxaan ku ogaay dad cad deganaa magaaladii oo reer Shangaani dad cad deganaa waliba meelaha ugu daran degmooyinka ay ku xoogan yihiin dadka cad degan ay ahaayeen waa degmooyinka qadiimka ah oo guryaha labada mataqaanaa 900 sano 800 sano dhisan oo caanaha geel lagu dhisay ayay ahaayeen marka waxaan isiri dadkii warnimayo markii cadaanta la isugu soo galay oo nimanka dadkan hawiyaha iscadeeyeen oo la isla dhacay bahalaha la ismarmarsho miyaa reer Shangaani intay xanaaqeen oo ay arkeen wixii wad cad may ayaguna daawo la isku madoobeeyay ma ismarsheen baa isiri midabkooda may bedeleen haddana luuqadaan dhageystay luuqadii ma ahan markan ilma adeerayaalow waxaan arkow hayaa dadkii balaamilayda gobolka Banaadir joogay hawiyihii qaran rafta ahaa in maanta saf la soo garsho Shangaani ka codeeya kuwii 90 dalka soo galay in ka codeeya dara kaaga sii daran aqal xumidooda cod bixinaa socotay sawirada noo soo qaadayaan waxaa la rabay afartoo gabdhood oo maqbiyaha reer xamar oo cadcado dadkii asturnaayo shukada madow qaadan jiray cadcada inay xataa safka hore soo gashaan sawir ka qaato aqli bay ahaaleed laakiin kuwii aan naqaano oo cirbaha madmadooba cirba jeexjeexda ahayo reer dhuundheer oo dhan oo qof ka maqneen oo udbahoodii iyo dhigahoodii wata horta meeshii Shangaani ka codeeya maanta waxaana leeyahay golo deegaane doorahayaan waana reer dhuundheer oo dhan inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun war wuxuu ashan maankii gadab masaare laqday war reer Shangaani goormay saamud mudoobaadeen inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun dad badan oo reer Shangaani meesha igu jira ba Jamaal saaxiibkay adoo imaqlaayo walaashay Jasmine aday imaqlayso waxaan leeyahay bal iga soo jawaaba intaad xanaaqdeen maad mataqaanaa aad ismariseen mataqaanaa daawo madoobeysa maad ismariseen mise kalarkii sida noqday mise waxaa weeye islaamu waa haddaan dhihi lahaa xataa dadkan waa dadkii mataqaanaa dadkii cadcadaa ay dhaleen dadkii cadcadaa la afduubto cadaado iyo meelaha la geeyey gabdhihii la xoogay oo la qaato cadaado la geeyey oo caruurtoodiiyaa codeynaysa xataa waa gaar ma ogtahay laakiin dee islaamo 60 jira 55 jira 70 jira oo codeynayo safka taagana arkayo madmadow ya arkayo laakiin waaba mataqaa u cudur daarna waxaan dhihi lahaa waa dadkii la qafaashayo cadaado inta la geeyey ilmaha laga soo dhalay oo la soo celshay waayo waxa codka bixinaya tiina ma ahan oo waa ka waaweyn yihiin oo waqtigaas cunuga dhashaa maanta wuxuu ahaa lahaa ama islaanta dhalataa waxay ahayd 35 32 33 ay ahaan lahayn iyaduna cudur daaran u heli lahayn ma ogtahay marka taasu horta waxaan u jeednaa waxa meesha ka socda iyo doorashada beebeenta ah sawirkaas guudaan ka baxshaa horta u marqaati ah taana waxaa weeye dadku inay arkaan oo ay Soomaali marqaati ka noqoto Shangaani cod laga bixina reer dhuundheerana safana codka dhiibaya waa adduunyo cusub waay taas waa adduunyo cusub Soomaalina marqaati ka ahaato kulleyba anagu wixii ka soo baxa aqoonsi baba siihaynaba taasu waa taas socdaalkii Xamse Cabdi Barre oo ku tagay Laascaanood waa soo gabagaboobay war saxaafadeedkii soo baxana waa aragnay xalan culays ku saarnay culayskii xalan aan ku saarnay luuqadii iyo lahjadii iyo afkii eragii la isu hoosgelihayana waa kashifnay markaan kashifnay kadibna waxay danta biday Xamse Cabdi Barre inuu sidii luuqadii siiqadii aan rabnay inuu lagu soo qoro waa lagu soo qoray kulleyba la aragaane waa taqaan aragaane waay xasan sheekh wuxuu ka yar aan aragno ayaduna taana waxaan halkaas ugu baxayaa
maxaabiista la sii deynayo maxaabiista la sii